wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha mudane Abubakar Cabdiraxmaan Good ayaa si rasmi ah uga dhagax dhigay magaalada Naqdhibijo ee gobolka Togdheer dhaambiyood weyn oo cusub. Mashruucan oo muhiim ah waxa si wada jir ah u hirgelinaya wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha iyo hay'adda caalamiga ah ee VOW. Dhaamkan cusub ayaa loogu talagalay inuu wax ka qabto baahida biyo la'aaneed ee ka jirta deegaanadaasi, iyadoo bulshada deegaankaasi ay si aad ah ugu baahan tahay helitaanka biyo nadiif ah iyo kayd waara. Dhaamkan ayaa noqon doona mid lafdhabar u ah horumarinta nolosha dadka reer miyiga ah, gaar ahaan xilliyada abaaraha, waxaanu sare u qaadi doonaa isku filnaanshiyaha deegaanka. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay lagu dhagax dhigayay dhaamka barasab ku-xigeenka gobolka Togdheer, isuduwaha wasaaradda biyaha ee gobolka, maaray ku-xigeenka wakaaladda biyaha ee Burco, odayaasha deegaanka, iyagoo dhammaantood soo dhaweeyay dhaamkan ay wasaaradda iyo hay'adda VOW iska kaashanayaan. aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa waxqabadka ballaaran ee muuqanaya ee aad qabatay xilkan aad ka qabatay wasaaradda. waa tiriibkii afraad aad gobolka ku soo noqoto adigoo mashaariic ka dhaqan gelinaya. aad iyo aad baan wasiir kugu mahadnaqaynaa. mar kasta wasiirku wuxuu dareesay baahida iyo biyo la'aanta ka taagan gobolka Togdheer maadaama uu yahay gobolka ugu xoolaha badan, biyuhuna ay ku yar yihiin. inuu xil gooni iska saaray oo ka warhayana waa uga mahadnaqayaa. waxaa farxad noo ah kale in deegaanka ka mid ah degmada Burco uu yahay kii saddexaad ee aan kala qayb galo wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha. waxayna tusaysaa dadaalka dawladdan uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu ay ugu jirto in gobolka Togdheer ay dhammaantood helaan biyo. annagoo reer Naqdhibijo cid allaale ciddii wax ka qabanaysa ee balligaa noo samaynaysaba waa soo dhawaynaynaa, waana la shaqaynaynaa, waana aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa, nabad baan ku soo dhawaynaynaa, gacmo furo baan ku soo dhawaynaynaa. agaasimaha waaxda biyaha oogada sare iyo mas'uul ku hadlayay afka hay'adda VOW ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay, iyaguna ka warbixiyay dhaamkan cusub. madaxda wasaaraddu waxa ay u taagan yihiin qof kasta oo reer Soomaaliland halku doona ha joogay in ay gaarsiiyaan biyo nadiif ah oo ku filan. maanta magaalada Naqdhibijo waxay xaq u yeelatay inuu soo gaaro isbedelka dawladda ka socda Soomaaliland ee ah qof kasta inuu helo biyo nadiif ah ku filan. balligan wuxuu qaadi doonaa biyo ka badan 40,000 oo foosto. waxa la yaala wuxuu balli u lahaa ee casriya ugu dhameystirantay hadday bacdiitay dararkii xoolaha, dadka iyo xooluhuba bannaankii ka cabi doonaan kiyosyada. cidi balliga ma geli doonto, xayndaab baa balligaa ku xidhan. reer Naqdhibijo waxaanu leenahay waxaad xaq u leedihiin balligan iyo wax ka badanba dawladdu inay idiin keento. mudane wasiir aad baad mahadsantahay safarkaagan quruxda badan leed maanta halkan ugu timi hay'adda VOW ee wasaaradda in badan bay la shaqaynaysay. run ahaantii waxaan kala shaqaynay mashaariic fara badan oo ah horumarinta biyaha. mashruucan maanta aynu doonayno ama balligan aynu doonayno maanta inaan dhagax dhigno wuxuu ahaa balli hore dadka deegaanka Naqdhibijo ay gacanta ugu qodeen. saa darteed maanta waxaan rabnaa inaynu dhagax dhigno isagoo noqon doona balli casri ah oo ballaaran oo shirkado dhisto, isla markaana yeelan doona wax alaala wixii amkaaniyad looga baahnaa balli. wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha mudane Abubakar Cabdiraxmaan Good ayaa gabagabadii halkaasi ka hadlay, isagoona ka warramay qorshaha xukuumadda ee dhanka biyaha, waxaana ka mid ah hadaladiisii. dhaamkani waa dhaam casri ah. muddooyinka dambe dhaamanku qaabkii hore waa laga gudbay, ama biyaha ay sii dayn jireen ama biyaha ay liqi jireen. qaradoodu fiican tahay, tayadooduna fiican tahay baa la dhigayaa. waxaa loo dhammaystirayaa habkii ay lahayd, hadday tahay silig, hadday tahay taangi loo dhisayo, hadday tahay dararkii xooluhu ka cabayeen, kiyoskii dadku ka cabayey, qolkii aad iyo aad buu dhammaystiran yahay, waana casri. waxaana loo baahan yahay ee muhiimaddu tahay marka waxaasoo dhan lanii qabto inaad ilaashataan. dawladdii marka waxaasoo dhan nii qabato inaad ilaashataan oo hareeraad ka joogtaan ood bacda ilaalisaan ood ciidda kolba wixii ku soo dhacaad ka qaadaan oo mashruucaasi uu jiro dhaamkaasi dee muddo dheer haddaad ilaalisaan. maxamed wardi, warbaahinta qaranka Soomaaliland.